Somali Commander. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan asxaabtayda qaaliga ay ku kala sugan daafaha caalamka ku soo dhawaada channelkayga Emras. Waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa haddii aad ku cusub tahay channelka Emras in aad subscribe saarto aadna asxaabtaada u sii gudbiso. mar walbo halkaan waxaan ku soo gudbinaa barnaamijyo aad muhiim u ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dalkeena Soomaaliya, iyo waxaana kale oo ka hadalnaa wixii markaa taagan. balse maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood oo kala ah Axmed Madoobe barasaabka saddexda gobol oo maanta hadlay iyo madaxdii hore ee dalka oo kulan 5 beri ah ku yeeshay dalka Turkiga iyo ayagoo ku soo wajahan Puntland halka uu ka taliyo barasaabka gobolada Puntland oo ah Dani. marka hore waxaan barnaamijkayga ku bilaabayaa shirkii ka dhacay Istanbul. markii runta laga hadlo waxaa meesha ku kulmay madax hore oo iskugu jirta barasaabyada gobolada iyo madaxdii qaranka. shirka meesha waxaa lagu mideeyay xisbiyo waxayna ku yeesheen hal musharax. mar walba barnaamijkayga waxaan soo dhaxgeliyaa dhalinyarada Soomaaliyeed because aniga dhalinyaro ah, aniga waxaan jeclahay wixii wanaag ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed u wanaagsan inaan ka hadlo. marka shirkaas ay odayaashu meesha ku qabsadeen ay ku doorteen hal musharax ee haddana ku soo wajahan yihiin Puntland. dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay maxaa is leedahay meeshaas waa ay kaaga soo baxeen, maxaa is leedahay meeshaas way wax tar leh ayaa ka imaan doona haddii lacala ay doorashada xigta ayagu xataa ay ku guuleystaan. ma u malaynayo in Soomaalidii hore u taqiinay qofkii la soo doortaa mar labaad in aan la soo dooran, kuwana in la dooran doono ma ila eka. waxa la soo dooran doono waa ama kuwa hadda jooga hadday suura gasho waay. haddiiba wax la dooranayo ee suura gasho in wax la doorto waxaa la dooranayaa kuwa hadda jooga because sababta anigu ugu aaneynayo ma ahan taageerid, ma ahan wax kale. sababta ugu aaneynayo waxay tahay madaxdii hore ee dalka haysay markii hal sano oo wasiir joogo isla markii waxaa la sameyn jiray in wasiirkii la casilo. hawshii sidee ku soconaysaa? wasiir kale la keenayaa wuxuu bixinayaa dhalinyaradii meesha ka shaqeyn jirtay ee wasaaraddaas fadhisay ayaa qadka laga saaraya, dhalinyaro heebtiisa uu keensanaya. laakiin 3 sano ee 4 sano hadda kusii socota maysan dhicin. sababta aysan ku dhicinna waxaa waaye madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo baarlamaankii iyo maxaa la dhahaa wasiiradii oo dhan wada shaqeyn ayaa ka dhaxaysa. madaxweynihii wuxuu yiri
ra-iisul wasaare howlahaaga soo geli maayee howlahaaga qabso yaa ra-iisul wasaarihiina wuxuu dhahay wasiirow hawshaada soo geli maayee hawshaada qabso so wasaarado badan baa la qurxiyey wasaarado badan baa la dhisay waxaa waaye mushaaraadkii iyo wixii way wada qaataan shaqaalihii dowladda soo meesha ifafaalaa ka muuqda waxaan isleeyahay marka waa lagu soo celin doonaa marka ma isleedahay shirki ka dhacay dalka turkiga way ku guulaysan doonaan u malay maayo in ay ku guulaysanayaan sababtoo ah waxa maankooda ka guuxaya waxa ay tahay qabiil aniga qabiil kuma soo korin waxaan ku soo koray soomaali weyn meel walba ay ku nooshahay meel gaar ah layguma soo korin ma fahante wadaniyadda iyo kalgacaylka iyo soomaalinimada waxay tahay anoona dowladda soomaaliyeed aanan soo arkinaa laakiin laygu soo barbaariyay waxay taariikhdu iyo juqraafiga iyo waxay la iisoo dhigi jiro o dhan ay ku jireen taariikh wax walba oo soomaali ay ahaan jirtay marka waxaan jeclahay wax walba oo wanaaga inaan ka hadlo marka ma u malaynayo in shirkaas wax wanaagsan oo maxaa la lahaa madaxweyne ay usoo bixin doono 2021 waxay kaloo usoo socdaan puntland barasaabka gobolada puntland oo iskugu yeeray dadkaasi meesha maxaa ka fahmi kartaa sababta la iskugu yeeray dadkaas dowladda qaranka soomaaliya waxaa kala dhexeeya xurguf maadaama ay kala dhexayso waxaa la rabaa in dadkan maanta ku shiri doona maxaa la dhahaa puntland in ay wiiqaan ama ay cabsigeliyaan dowladda federaalka ee soomaaliya laakiin taasi ma u suuragelayso dowladdan wax walba waa lagu soo daya wax walbo waa lagu tijaabiye way suurageli weyse tanna ma suuragelayso marka waxaan leeyahay shirkaas qodobadii kasoo baxay waxyaalihii kasoo baxay oo dhan ummadda soomaaliyeed qaas ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo ujeedaan beri qofka aada dooranayso ha noqdo qof waxtar leh ha ku dooran qabiil ha ku dooran qurun ha ku dooran in adeer seedi abti walaal midna ha ku dooran saas ayaa idin leeyahay midda labaad waxaa maanta hadlay barasaabka gobolada jubbooyinka iyo gado axmed madoobe ayaa maanta hadlay axmed madoobe cabaad iyo dood iyo maxaa la dhahaa uu iskugu daray wax walbo wuxuu dhahay turkida ciidamada aad soo tababaraysaan haramcad iyo shabeel iyo dugaag iyo waxaad ku yeertaanba walaalayaalow yaa shacabka lagu leynaya naga joojiya ciidan shacab lagu leynayo ma jire ciidankii maleeshiyaadka ahaay ee lagu soo tababarayay xuduudaha kenya iyo soomaaliya u dhexeeya ayaa looga hortagaya shacabna lagu baabi'i maayo ciidamada aad sheegtay in loogu talagalo shabaabna way baacsanayaan maleeshiya beeleedna way baacsanayaan amniga dalkana way sugayaan taasi waxaa waaye waa lama huraan ciidanku waa ciidan qaran oo calankooda soomaaliga inta ugu dhegan yahay ma ahan calan saddexda gobol ay samaysatay midda kale wadahadal goormee lagula yeelanayaa markii aad tahay qof la aqoonsan yahay laguma aqoonsana dowladda dhexe ee soomaaliya kuma aqoonsana dowlado badan oo caalamkaana kuma aqoonsana haddii aad rabto inaad aqoonsi raadiso laguma aqoonsana sababtaan lagu aqoonsanayna waxay tahay wax walba oo soomaaliya gudaheeda ka dhacaya waxaa shuqul ku leh wasiirka arrimaha gudaha hadduusan wasiirka arrimaha gudaha uusan hawshiisii uusan gudanna aad ka hor istaagtay wixii adiga aada dhoobto waxaasi wax soconaya ma ahan in adeerow kuma necbanin oo ku jecelnahay laakiin wanaagga leen ka hadlaynaa qabiil ahaanna laguguma ataagayo wax kale laguguma ataagayo waxay xaqiiqdaa in la sheego turkidana waxay tababaraysaa ciidamo kuwii ugu wanaagsanaa ee abid la tababaro markii laga reebo kuwii lagu soo tababaray dalka ruushka ciidamada hadda jooga waa ciidamada ugu wanaagsan uguna fiican ee maxaa la dhahaa
tababarkeena ee dadku ay ku seexdaan oo ay kusoo toosaan ayagoo maxaa la dhahaa dhuusamareeb xasiliyey ay beled xaawana xasiliyey ceel waaqna xasilinayaan garbahaarey saas ah waxaa laga soo gelayaa maxaa la dhahaa dhankaas iyo dhobley so axmed madoobe arrinta waa kugu culus tahay maanta waad hadashay hadalkaagu laakiin ma ahayn hadal oo ummadda soomaaliyeed qancin kara hanjabaadna way ku jirtay aan wada hadalno haddii aan wada hadlaynin aan wada hadli karinna qola saddexaad aan u yeerano qolada saddexaad waa tuma ma caalamka beesha caalamka ma ayadaa soomaaliya ka talisa kama taliso soomaalinimo qolada saddexaad haddaa ka dhigatid odayaal waa lagaa yeelayaa wixii odayaal dhaqan soomaaliyeed iyo boqorro sheegtay iyo ogaasi sheegtay wax dhan waa lagu keenayaa wada hadal diyaar dowladda soomaaliya xuduudaheeda ayadaa ka talisa ayadaa ka talisa maxaa la dhahaa lacagteeda ee arrimaha dibadda waxyaalaha ayada ay adig gudahaaga ka tasho gudahaaga maxaa ugu talinaysaa arrimaha bulshada waxa aniga mar walba aan ka hadlo arrimaha bulshada waxaa loo baahan yahay inaad adiga keento iskuulaadka caafimaadka waxbarashadii wax walba biyo nadiif ah waxaasaa lagaaga baahan yahay inaad gudaha ka qabato aad hagaajiso ma ahan inaad dibadda ka hadasho ma ahan inaad uhuru kenyatta la kulanto ma ahan inaad la kulanto etoobiya iyo meelaha kale maxaa la lahaa soomaaliya mucaaradka ku ahay ama raba inay wiiqaan ma ahan in aad dhahdid maxaa la dhahaa etoobiya saraakiisheeda qurunka ah saraakiisheeduna waa quran kuwa adiga kuu jooga waa ku wanaagsan yihiin miya ma wanaagsan they are same isku mid waa labadaba saraakiisha etoobiya ee aada wax ka sheegayso iyo saraakiisha kenyaatiga ee aad dabadhilifka aad u tahay ee meesha jooga kulliba waa isku mid adeerow waxaa lagaa codsanayaa inaad xilka iska tiriso intaanan godkaagu biyo kugu soo gelin hadda waaba soo galeene intaysan kuusii quusin waxaa loo baahan yahay inaad xilka iska tiriso haram cad iyo gorgor iyo maxaa la lahaa libaax iyo waxay ahaadaanba waa ciidan qaran soomaaliyeed soomaaliyana waxay u hari doontaa dadka wanaagsan siyaasiyiinta qurunka ee dabadhilifyada ahna waddanka way ka fadhiisan doonaan dhalinyaradaa soo kici doonta dhalinyaradaa wax qabsan doonta dhalinyarada way fakartay ma liibaanayaashii lagu liibaanay haddii aan shal ahayn maanta waxaan noqon doonaa liibaanayaashii lagu liibaanay dalka waa loo kici doonaa waana loo istaagi doonaa adduunyaduna lafoorkayay gacanta saaran doontaa barnaamijkayga halkaas ayaan kusoo koobayaa waxaana idin leeyahay maalinku ha idin wacdaano asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh